maanta ciwaankeena waxa uu ku saabsan yahay misana aan ka hadli doonaa fikradaha laga haysta xirfadani forex. dadiyowga inta badan waxay aaminsan yihiin inay tahay arin aad iyo aad u dhib badan in la barto xirfadani forex, balse qofulka maanta madaxooda ku xiran ayaan waxaan doonaynaa inaan ka jibino. aaladani forex misana xirfadani waa xirfad aad iyo aad u saqiran, qofkii ugu talagalana oo waqti dhow ama waqti aad u kooban ku baran kara. haddii aad heshid macluumaad si sax ah misana ku saabsan, ama ha fogaadaan ama ha gaabtaan, macluumaadkaasi haddaa si saxan aad xoogga u saartid, waxaa boqolkiiba boqol aaminsanahay suuqani inaysan cidna kaaga turjumin. laakiin waxaad ogaataa haddii macluumaad xitaa aad heshid aysan kaa go'onayn inaad baratid, waxaad mar walba u nuglaanaysaa in aad noqotid mid gacanta hoorsada. adigu intaad dhinacyada eegaysid, saaxiibkaagii isku waqtiga aad aheedeen ayaa waqti fiican iyo juhdi inuu galsho ayaa beri maalin maalmaha ka mid ah asiga aad hoostagaysaa. haddaad aragto ruux kale ka dadaal badan, haddaad aragto cid ka sarreyda ma jirto. ruuxaasi waxa uu qaatay go'aan ah meesha oo maanta joogo inuu ka dhaqaaqo. ruuxa kaleeto oo caayibka misana caajiska ah inta badan waa ninka ugu eedda badan, 90% haddaad aragto. dadka aanan waxba qabsanayn intooda ugu badan fiiri waa ay eed badan yihiin, oo eedoodu waxa weeyaan midaan la soo koobi karin. sababtoo ah waa ay gaabteen, waxay ka gaabiyeen inay wax qabsadaan. kaliya waxay af u leeyihiin waxay tahay in ay ummadda ku dhagaan oo maantoo idil waxaan meesha yaalin ka hadlaan. marka asxaabteyda, haddii inta aad ruux wax ka sugaysid, tusaale adiga maantoo idil waxaad sugaysaa wax la yidhahda signal, ama inuu qof wax kuu sheego oo runtii ku yidhaahdo tareedkaas inta ka qaado. weligaa waxaa ahaanaysaa nin ama qof aanan noloshiisa ka guulgaarin. intaad ruux bini'aadan u baahan tahay, ruux qofkuu doono ha ahaado, intaad ruux bini'aadan u baahan tahay aad gacan horsanayso, wallaahi waxaa tahay mid gun ah. ma tihid nin gob misana isku filan. intaa adiga hoos joogtid dad biyo bini'aadan, intaad dad biyo bini'aadan hoos joogtid, waxaad ogaanaysaa asxaabta kale dadaalka fara badan ee macluumaadka aadka u qiimaha badan ay qaateen ama ay daawadeen ama la siiyey ama ay si ay ku heli karaan ku heleen, waqtigoodii ka mira dhaliyay inaad beri adiga aamuteysan doonto iyaga. inta adiga maanta aad wareegaysid oo wax aanan qiimo lahayn iyo hadal aan meesha yaalin iyo aan macluumaad kale oo aanan inta badan qiimo lahayn intaad daba ordaysid, waxaad ogaanaysaa in aadan maanta maalinaan ahayn aad ka shalay doonto. mar walbo bahda Birlab FX waxay asxaabta u sheegtaa suuqani forex nidaam walba uu shaqeeyaa, laakiin qaabka aad u jihisid ayaa kala duwan. tusaale bahda Birlab FX ayaa maraan fogeen waxaa la soo xiriirin asxaabta waxaa ka mid ahaa ruuxaasi asii dhowr asxaab ayaa jireen. asxaabtii la socotay waxa uu go'aan ku gaaray inuu asiga noqon doono mid maalin ay hoos imaan doonaan. waxa uu sameeyey waxay tahay wixii uu soo bartay iyo macluumaadkii soo helay ayuu waqti fiican geliyey, enerjigiisa geliyey, ka mira dhaliyey. waa ninkii ugu horreeyay at least aan xasuusto 1 bil iyo bar, at least 2 bil baxda aysan ku qaadan inuu maanta suuqani ee tuzad xirfadda aan isticmaalno ku fahmo. dadaalkiisa shalay markuu asxaabta Birlab FX bahda Birlab FX oo la soo wadaagaya arrimihiisa ama afkaartiisa, dabcan nidaamkani wax fikrada ma uusan ka haysan, maybe inuu meelaha kama maqlo, laakiin wax sidaa kama haysan. arrinkuna ma ahan inay bahda Birlab FX keliya ay bixiyaan nidaamka. macallimiin fara badan baa jira, mentor fara badan baa jira, macluumaad fara badan baa jira YouTube-ka. waxaad ogaataa
waxaad inta badan aad waqti gelisid shay walba maanta aad nin walba maanta wuxuu yahay waxaa maanta aad waqtigaa gelisa aad beri ahaanaysaa. shayga aan maanta haysid sidaad ku tahay ayaad mustaqbalka ku ahaanaysaa. marka adigoo nafsadaada has qiyaamin waxaa lagu siiyey macluumaadkaasi aadka u qiimaha badan, waqti la soo geliyey, juhdi la soo geliyey. waxaa laga rabaa muuqaalka ilaahu mu 2 daqiiqo ahaado, 1 daqiiqo mu ahaado daro. muuqaalka markaad daawanaysaan waxaa u daawataa in muuqaalkaani mid adiga anfac kuu leh inuu yahay. hadda laakiin muuqaal yar oo aad maybe u malaysay mid TikTok aad ka fiirsanaysa ama mid kaleeto oo YouTube kaleeto aad iska caadi aad u fiirsanaysa doo yahay, waxba kuma soo siyaadinaya. muuqaalka markaad daawanayso waxaa la rabaa inaad soo qaadatid qalinkaaga, waxaa la rabaa inaad soo qaadatid buuggaaga, note samayso hadaadan note garin, adigoo og xataa fahamsan note garay, qoraal ku samey, qor. haddaad note garaysid, cilmigaad note garaysid waa mid maanta beri aad bulshada u sharxi doonto. laakiin haddii aad iska daawatid oo kaliya aad kor iyo hoos aad ka fiirsid ama maanta kan gudbisid maya waxba kuma saacidayo. waqtiga baad haysataa, waxba kaama cararaya. maybe tusaale waxaan kuu sheegayaa, waxaad ka soo qaadaa iskuulka meeqa sana soo qaadanaysay, jaamacadda sidoo kaleeto. iskuul iyo jaamacadda soo baratay at least waxay kugu qaadatay adiga ugu yaraan 12 sano kugu soo qaadatay. kasoo qabo haddaan iskuulka 8 sano kasoo qabanno, jaamacaddan 4 sano, 12 sano meeqa maalin la ku jirto? 12 sano meeqa maalin la ku jirto? 12 sano meeqa bil, meeqa isbuuc, meeqa sax ayaa ku jirta 12 sano? marka adigu muuqaalka daawanayso dii hal maalin aad gelisid ka waran, aadan iska waalin, orod aan isku furin, zaxmad aan isku furin, muuqaal walba daawanayso haddaad tiraahdo ka waran. anigu maanta muuqaalkan kaliya ayaan waxaan rabaa inaan tadbiiqiyo, focus ka saaro, aan wax kastoo macluumaad ku saabsan note gareeyo, ciwaanada ugu waaweyn qaato, kadibna aad la tagtid training view-gaaga, wixii aad meesha ku soo aragtay aad practice ku samaysid, practice garaysid. kadib markaad muuqaalkaasi meel soo saartid oo su'aalo badan kaaga imaan kara aad ka jawaabtid, muuqaalka labaad u gudub. ha degdegin, orodka jooji. hal bil bes noloshaada aad xoogga gelisid ayaad kumaan kunoo bil hadduu ilaahay ku gaarsiiyo, boqolaalo bil hadduu ilaahay ku gaarsiiyo ayaad ku nacfinaysaa. asxaabteyda qaaliga ah Bahda Berlab FX mar walba waxaan u taaganaan waxay tahay inaan asxaabta usoo gudbino macluumaad in badan anfacaya. marka inta noloshaada aad ruux bini'aadam u baahan tahay aad ka sugaysid wax la yiraahdo signal ama aad trade aad ka sugaysid mateed ruux hora. asxaabta waxaad arkaysaa qof ku dhahaaya aniga waan shaqeeyaa. adeer hadaa shaqeysid shaqadaa ku ekaw, taas Allah kuu barakeeyo. hadaa shaqeysid oo fursad aadan haynin, midaad ka shaqeysa Allah kuu anfaco. balse ma diidanin, waa laga shaqeyn karaa labada shaqo. laakiin inaad tiraahdo aniga halkaan ka shaqeeyaa oo waqtigii ugu badan 80-90% halkaan geliyay, inta soo hartane akoonaan gadana, akoonkaasi waxaan u baahanahay signal ama in aan trade qof ii soo diro aan ku galo. warkiis waa aad buu baaxad u weyn yahay, waxaana la doonayaa waxay tahay cilmigu inaa adiga aad baratid. warkiis waa mid aad iyo aad u saqiran, ruux walbana baran kara. aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.